Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada YouTube channel-kayga. Marka ugu horeysa waxaad igu salaamaysaa salaanta salaamka. Marka xigta maanta waxaan gobolkiisa ugu imi oon marti u ahay weliba gurigiisa saaxiibkay Maxamed marna walaalkaya. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan aniga isaga iyo idinkala dhex baxo si uu iskiin baro. Maxaan kusoo dhawo walaal YouTube channel-kayga Yaxya Live. Fadal. ما شاء الله brotherkeyga waa dhawahay waxaa sharaf ii aan ku faraxsanahay inaad soo booqatid magaaladeeda gaar ahaan igu soo booqatid gurigeyga waan salaamayaa asxaabta channelkaada ku xiran meel walba dunida dacaladeeda ka joogaan waxaa kaloo aad u salaamaya ugu faa'iideysanayaa inta maqalkeyga iyo muuqayga taqaano salaam guud baan halkan u gudbinayaa soo dhawo waan ku leeyahay brotherkeyga waad mahadsantahay maxamed waxaad degan tahay gobolka Turingan qaasatan caasimadda Erfurt. Bal intaan marka ugu horeysa su'aalaha guud galin waxaan rabaa gobolkan Turingan intaad ka warqabto magaalooyin badan buu leeyahay qaasatan waxaad degan tahay caasimaddii inagu waxaynu markasta aynu diirad saarnaana waa Soomaalida. Marka bal ka sheekee ama ka xog muhiim ah dadka ka sii Soomaalida gobolkan ku sugan maxay qabtaan noloshooda waa sidee xayalay maalmihii ugu dambeeyay bilowgii ugu dambeeyay waxaad ka warqabtay in social media ku jireen in caasimadda Erfurt ama gobolka Turingan dadka badana laajiinka ama soo galeetiga lagu dhibaateeyo walaalkeyga waa su'aal muhiim ah ma sha Allah gobolkan waxaan deganahay muddo ugu dhawaan 6 sano alxamdulillaah rabbil caalamiin caasimaddiisa Erfurt aan deganahay waan magaaladii ugu horreysay aan ka degay walaalkii horta way jirtaa dhibaatooyin badan meesha waxa ku nool Soomaali aad u badan baa ku nool way jirtaa marar qaar waxa la dhaho cunsuriyad ay ku kacaan dadka cadaanka laakiin kama wada simno ilaa 5 farood ma simin dad wanaagsanna way leeyihiin markaas uu fiirisid dhibaatooyin badan baa la soo geystaa waxaan xasuustaa hal sano ka hor waxaa lagu dilay wiil Eritrea oo inkastoo saxaafadda iyo dadka wax qiimeeyay ee dhaheen wiilkan asaas dilay laakiin markaas uu fiirisid ani ahaanteeda way gadhaa dhicways wiilkaas noo asiga dilay waxaan ila noqotay in wiilkaas la dilay taamka gees uga baxo oo dhanka Soomaalida aan u tago horta ma jiro ilaa hadda qof Soomaali dhibaato loogu geystay Soomaalida oo dad iska afgaaban oo socodkoodana yar yahay inta badan guryaha ku jiro taa awgeeda Soomaalida meeshaan ku nool isma dhihi karo dhibaatooyin bay ku qabaan dhibaatada ku qabaan waxay tahay oo kaliya inaan ahayn dadka dhaxgalo yani dhanka socialka ay ka liitaan marka su'aashaas dad badan way jiraan waa maqlay aniga markaan dhaho kale gobolkan aan deganahay markaan u sheego igu dhahan gobolkaas maxaad ka sameynaysaa waa gobol aad la iskugu dilo waa gobol dhibaato badan waa gobol dhib la isku geysto marka aniga ahaanteeda markaan kaaga jawaabo uma maleynayo gobolkan dadka waxay ka fahansan yihiin ama ay ka aaminsan yihiin dadka aan degnayn in uu yahay su'aasha kale ay weydiisay waxay tahay Soomaalida maxay qabtaan taa run ahaantii kagama jawaabi karo haddii aan ku dhaho Soomaalida waxaas bay sameeyaan saas bay sameeyaan taa waxay ka micno tahay inaan maskaxdeeda kaaga jawaabay sababtoo ah Soomaalida meeshaan ku nool waa dad kala duwan yani dhowr nooc wax kala duwan isticmaalaan ama sameystaan dad way shaqeeyaan dad iskuul bay tagaan marka aniga laakiin dhanka sportiga u badanaho dadka ma sii dhaxgalo sidaas kale oo dadka oo familada dadka shaqeeyo dadkaas ma sii wareysto laakiin dhanka sportiga kale wax iga wareystid macquul inaan kaga jawaabo kaga sheego okay maxamed waxa ka jira gobolkan horta dhaliilo aad u badan oo ah inaan Soomaalidu isku xidhnayn Soomaalidu aanay lahayn wax gudoomiya Soomaalidu aanay ka jirin ama wax jaaliyada ama waxsaasa waxaan ka warqabnaa dhacdadii iyana ka dhacday tusaalahaan soo soo qaadana wiil Soomaaliya ee meesha ku geeriyooday Ilaahay u naxariisto isagii intii dhimatayba waxa la waayay qof aasa ama duuga si Soomaalidu ka dhaqaan marka ma jira qof gudoomiye ah oo tusaalahaan hadduu qof wax ku dhacaan ama u kacaya oo garab istaagaya oo wax u ururinaya ma ka jira magaaladiinan maxay lacadigiiba caasimadii degan oo aniga iga waran والله walaalkeyga su'aashaas waa su'aal muhiim ah oo aad u muhiim ah oo loo baahan yahay dadka inay isweydiiyaan dadka gobolkan ku nool iyo dadkan ku nooleen yani Soomaali waa Soomaali waxaan aaminsanahay gobolkan dhowr mar oo isla magaaladan lagu shiray jaaliyad brotherkeyga wax laga xumaado horta way tahay qof dhintay
wiig meedkiisa yaalay wiiggaasna loo waaye dad duugto waxay ka dhacday oo keliya gobolkan Turigan taana waxaa u sababe Soomaalida ku nool taa waxaan u leeyahay oo dusha Soomaalida ugu saaraya qoom ilaahay ma uumin yani dulaysan ilaa qoom isduleeye ma ogeeye Soomaalida gobolkan ku nool walaalkayga waa Soomaali in badan jaahiliin waa dhihi karaa hadalkaa waxaa laga yaabaa dadka inay gaf iga arkaan laakiin markaan waxa aniga aan arko iyo waxa aan dareemayo aan ka sheekeynayo waxaan u maleynayaa hadallada qaar inaan dhaho wallaahi inaan ceeb u arkin taa waxaan ku leeyahay waxaa dhacday walaalkayga muddo hadda waxaa laga joogaa 8 bilood saan jeclahay 8 bilood yes magaaladan waxaa ka dhacday guryaha ka mid ah magaaladan ku yaalo waxaa iskugu imaadeen Soomaalidaas inta ugu badan Soomaalidu waxay ahaayeen degan magaaladan rag waaweyn oo wallaahi waxaa ku jiray as dhihi kartid يعني رج واحد كحو قبل كروا لكن كان يعني موقود iyo garkooda iyo shakhsiyaadkooda ma ka aragtid laakiin ficilka aan ku arkay waxay sameeyeen wax wanaagsan ma ahayn sababtoo ah dad waxay ahaayeen qabyaalad in wax ku qaybsadaan u baahnayeen taane dad noocaas u fikirayo ama noocaas ficilkooda yahay uma maleynay in Soomaali wax u qaban karaan taaba keentay mid in yani ay dhacdo midnu iska yaalo week kamil isbitaal dawladana ay dhahdo dad buu ka dhashay Soomaali jaalidna ma lihin aniga marka laga hadlo ma garanaysaa jaalid la'aantana waxaan dhigay isku xirnaash la'aanta qabyaalada qurunka iyo Soomaali meesha dhigtay walaalkii waxaa jirto gobol aniga noo dhow Stuttgart oo kale hadda aniga waxaan jirtaa wax u gaaban Frankfurt sidoo kale jaalida ka dhisan adiga gobolkan waa ugu nooshahay miis weydiisay oo mystery why oo gobolkan ugu soo bixi waaye yani dad awaabulo ama yani dadka masaakiinta wax u qabto jaalidna ka sameeyo taa jawaabtiis la aniga waan ku sii karaa oo taana waxay tahay Soomaali alxamdulillah san ku neef la ugu sareena oo Ilaah baa Soomaali naga dhigay laakiin qabka aniga nagu jiro ee qaabka u dhaqanna isma leh taa waxaan ku leeyahay Soomaalida gobolkan ku nool walaalkayga waa dad aaminsan qabyaalada wadada aaminsan magaalo yani in wal magaalada ka soo jeedo ama magaalada yani markaas oo ka yimaaday ahaan iyadoo fiirinayaan waxa laga yaabaa wax badan inay u burburiyaan taaba kaliftay oo keentay in yani maanta aan ahaano dadaan jaaliyad lahayn dadaan meel ku tiirsan yihiin aan la ogeyn waxaa jiro magaalada hadda aniga ku noolahay yani effort dhalinyaro Soomaaliyeed oo markaad noloshooda aragtid wallahi qalbiga ku xanuunayo oo adiga ahaan maanta hadaan ku dhaho hebel waad garanaysaa oo jeclayna magaciisa ku dhawaaqo noloshu ku jiro meeshuu ku nool yahay xaaladiisa wallahi Ilaahay wuxuu ka marqaatay ama ka arka qalbiga ay xanuuno oo wadan qada qofkan weydiiyene dad badan baa weydiiyay dhalinyaro badan nin walba wuxuu ku leeyahay nin walba tiisa haysato okay qof saas u fikirayo ma kula tahay qof walaalkiyo ka dhintay inuu wax u qabanayo waa maya kii noolaa wax loo qabo waaye oo magaalada u dacsan marka walaalkii meesha waxaan sidii karaa jaahilnimada ku badan waayo qofka demar qabyaalad qalbiga ka gasho walaalkii waa jaahil oo wuxuu bartay wax ma tirayso wuxuu bartayna wax ma qabanayso Soomaali aniga mid baan u diri lahaa uga faa'iideysanayaa fiidiyogan qabka kugu jiro ee Soomaalinimada sheeganaysid danqasho walaalka ha u noqoto halaan waxaan u sii raaci lahay Soomaalinimada afkeena noqonne ficilkeeda muujiyo oo taa waxaan u leeyahay gaar ahaan waxaan baaq u dirayaa dhalinyarada iyo waxgaradka iyo odayaasha ku nool gobolkan igu nool runtii aniga gobolkan waxaa jirto qorshooyin badan aan sameeyay oo dhanka sportiga aan ka sameeyay aniga waxaan player oo dhanka sportiga aan social ahaan ugu fiicanahay marka saas darteeda waxaan dhihi lahay meesha waa meel u baahan dadka u baahnaydna weli aan joogin taas oo waxaan u maleynayaa su'aashan ku fogaaday oo taas brotherkeyga aad baad u mahadsantahay saaxiib waxaa tahay nin dhalinyaro oo waxaan aad iyo aad diiradda ugu saaray muddana ku nool magaaladan haddaan ka gudubno dhowrka su'aalood waxaa jira su'aal aad muhiim ah aan rabay inaan weydiiyo waxaa tahay gudoomiyaha sportska ee gobolka Turingan waxaa laga yaabaa inay su'aasha dad badan ay soo weydiiyaan laakiin Maxamed run ahaantii waxaa tahay nin dhalinyaro oo sportska sumcad ku leh oo ka ciyaara heerar kala duwan ka gobolkana marka ugu horeysa waxaan rabnaa intaanan u gudbin hawshaada sportska ee ka dhex guuxaysa
aad rabto inaad gobolkan ka aasaasto marka ugu horeysa waxaan rabnaa bal heerka aad sportska aad ka taagan tahay inaad in yar aad bulshada la wadaagto maxamed soo dhow waa dhawahay brotherkayga su-aashaada quruxda badan waad ku mahadsan tahay runtii aniga waxaan anin player alxamdulilah balwadeedii hobigaygana waa kubad sportiga waa dhowr nooc ba u kala baxaa aniga sportigaygana waa kubadda cagta alxamdulilah waxaan u ciyaaraa dhowr naadi baan usoo kala ciyaaray gobolka hadda aan degan yani magaalada aan ka deganahay naadiga hadda aan baaqiga ku ahay oo aad ugu sii fogayna waa FC Pontal Airport Uber League aan ka ciyaaraa laakiin rajada aniga aan lahay markaa tayda ka hadlo weli kamaana gaarin waqti dheer aan kusoo jiray laakiin isma dhiibayo waan sugayaa rajada intaan ka gaaray insha allah maxamed okay aad baad mahadsan saaxiib ilaahay rajada kuu rumayo iminka waxaad qabanqaabinaysaa barnaamij aad doonayso inaad dhalinyarta talentiga leh ee gobolka kula degan inaad ii sheeg muxuu ahaa aad talentigooda usoo bandhigto gobolada kale hawshii waad ku guda jirtaa ilaahay kula garab galo gobolka wuxuu ka kooban magaalooyin saad wada ognahay magaalooyinkiibaa dadka keentay sida xulalka adduunka laga sameeyo kale traininad u qabatay hawshii waad ku guda jirtaa bal maxaa is leedahay bal waxaad nooga warantaa hawshaas halkay ku marayso iyo mustaqbalka insha allah waxaad rajeynaysa maxamed kusoo dhowo walaalkii mar kale waa kaaga mahad celinaya su-aashaada waa sax way jirtaa xilli dheerna aan ku fikirayay inaan kasoo saaro gobolkan yani sida goboladoo kale yani naadi dhisan waxaan garanayaa dhalinyaro badan aan isla soo galnay Yurub oo gobolada kale ku nool yani kooxo badanna ka dhisan taas awgeed waxay u kaliftay aniga naftigeyga inaan raadiyo inkastoo waqti dheer ay u qaatay alxamdulilah hadda waan ku guulaystay oo hadda waxaan gacanta ku hayaa dhalinyaro badan kubaddooda wanaagsan tahay yani akhlaaqdoodana wanaagsan tahay inta ani aan ka arkay ixtiraamkoodana wanaagsan yahay oo isdhihi kara maanta waa rajada aad lahayd ama yani wixii aad ku haminayso gobolka inaad kasoo saartid way ku rumay karaan gobolkana ma aha hal gobol labo yani hal magaalo labo magaalo ma aha magaalooyin badan waxaan kasoo xushtay oo isku keenay oo intii playerinta oo isdhihi kara wax qabad bay leeyihiin aniga wuxuu ilaahay ka markhaati yahay playerinta kuma doorto magaalo ka yimaada intuu ka yimaada sunwy bas waxaan ku doortaa akhlaaq inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan qof qiimaha kubadda garanayo waayo kubadda waa respect oo wax respect ku samaysan qofka hadduu player yahay ama kubadda micno ka yaqaan waa qof isdhihi karo dhankiisa waa respect ka leeyahay ciyaartooy aan ka tagana way jiraan yani dhibaatooyin badan iga soo gaarina way jiraan oo aniga ahaanteeda weli isla gobolkan isla magaaladan marka brotherkayga taas waan wadaa oo waxaan rajeynayaa weli inaan ku guuleysto hadduu ilaahay karaal noqdo meel fiicanna way ii maraysaa taana mid baan ugu sii tegaynin oon keligeyga waxaan aan sameynayo iyo naadiyaashan waxaan isku keenaya ma aha wax keligeyga aan sameeyey dhalinyaro badan oo hadda aan magacoodana ku dhawaaqaynin waayo haddaan magacooda ku dhawaaqa laga yaabo dad badan inaan meesha aan ka tago oo aan igu garab siiyey oo maanta garabkayga taagan oo waxa aniga aan qabanayana igu raacsan way jiraan aad iyo aad baad u mahadsantay guddoomiye su-aasha ugu dambeysa raba inuu ku weydiiyo waxay tahay guddoomiye gobolkan badanaa dadku kama warqabaan maxaa yeelay ma lihin dhalinyaro social media xaggiisa ku wanaagsan adigii oo ah guddoomiyihii sportska adiguna aad baad mashquulsan tahay marka dhalinyaro badanoo waxaa jirta talent leh oo ii sheeg muxuu ahaa adiga laftirkaaga aad aqoon u lahayn marka aniguna waxaan rabaa insha allah oo gobolkanna nala degan dhalinyartaas hadday lacala videogeena daawadaan maxaad ugu baaqi leh wallaahi waa su-aal muhiim horta dhalinyarada gobolka Twigan degan inta playerinta oo kubadda taqaano waxaan ka codsan lahay xataa aniga ka sii codsanaya anigoona aan lacagna weydiinaynin oo xataa dharka uu ka ciyaaraya weydiinaynin inuu nala soo xiriiro weliga gaar ahaan haddii xataa aniga aan yani number ama waxba iga haynin xataa comment noo waraba videoon sidii waddo adigu soo gaarani wuu soo gaarayaa si aan playerkaas u helno muhiim ma aha in oo playerkaas yani wax dhaqaale iyo waxaas oo naadiga ku kordhiyo bas waxaa muhiim ah ixtiraamkiisa sportigiisa yani iyo isdhexgalkiisa bulsho ahaan inaan ka faa'iidaysano oo asiga noo faa'iideeyo waayo qofka player hadduu kugu soo biiro wax buu kuu tarayaa hadday noqoto dhanka kubadda hadday noqoto dhanka waayo aragnimada hadday noqoto dhanka maskaxda waa soo dhaweynayaa oo waxaan ka codsan lahaa in nala soo xiriiraan si qalbi furan baa usoo dhaweyn doonaa hadduu ilaah karaal noqdo insha allah
gudoomiyaad baad mahadsan tahay waxaan soo gaarnay ugu dambeyntii guntii gunaanadkii ma jiraa wax fariin oo kala diraysa insha allah والله فرين وجرتا فرين تدين waxaan u diri lahaa Soomaaliya oo dhan waan kaga faa'iideysanayaa jaaniskan oo muhiim buu yahay Soomaalida waxaan horan in ugu dhawaaq rajeynayaa oo ka codsan lahaa Soomaaliya midnimada ku dadaala walaalnimada ku dadaala adduunka wax la isku yahay waayo aakhiro ilaahay quraankiisa wuxuu ku dhahay kullu nafsin bima kasabat rahim yani naf walba waxay kabsato iyo waxay sameeyso oo bay aakhiro la tagaysaa adduunka waa laba maalin عرفت نحن هذا يوم لك ويوم عليك نقطة كوا أدون كركيس وحسكوا قبته نقطة كوا أدون كركيس ولا تنمد إياه سومال نمد إياه قيمها الشيء يعني مركب ملاها كلا جوان إيكو حسكوا قطره وسلامتين مرة بدون الدعوة ذاك جبتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته